In waalan ayaa hadda kahor laga sii daayay isbitaal dadka waalwaalan, waxaana lagu sii qaaday gaari ambalaas ah. Markii loo soo dhowaaday xaafadiisa, ninkii waalnaa ayaa yidhi, "Waan imaaday xaafadeyda ee ha la dejiyo." Asaa waxaa la weydiiyey, "Maxaad ku garatay inay xaafadaadu tahay?" Markaas buu ugu jawaabay, "Labadaas cunug oo iskuulka u socota aniga ayaa dhalay." Haddana waxaa soo baxay haweeney. Wuxuu ugu jawaabay, "Tanna waa xaaskeyga." Haddana waxaa soo baxay nin kulaha, "Kanna waa anigoo shaqo u socda oo labisan." Mar ayaa hadda kahor ilmaheeda naas siinaysay, kadib ayaa mid qaylsan oo aad iyo aad u marqaansan soo ag fadhiistay. Kolba waxay tiraahdaa, "Hooyo naaska hoo, ama haddii kale ninkan ayaa kaa siinayaa. Hooyo naaska hoo, ama haddii kale ninkan ayaa kaa siinayaa." Kadib markii dhowr jeer ay ku soo celcelisay, ninkii marqaansanaa intuu uu fiiriyey kulaha, qof weyn baa tahay go'aan gaar. macallin ayaa ardaydiisa ugu sheekeynayay maalinta qiyaamaha. Wuxuu kaloo ugu sheekeeyey maalinta qiyaamaha in cirka iyo dhulka la laalaabi doono, dadkana ay dhiman doonaan. Cunug yar oo ardaydiisa ka mid ahaa ayaa macallinka weydiiyey, wuxuuna ku dhahay, Macallin, maalintaas dugsiga ma jiraa?